محمد علي قلدان marka hore ku soo dhawow Quality HD Sports su'aasha koowaad aan ku weydiinayaa waxay tahay kooxdaada Goodir oo tababaro u tahay warbixin kooban waad mahadsan tahay aad baan ugu mahadnaqay marka hore waxaan salaamayaa Quality HD oo markastana garab taagan warbixintayadana dadweynaha u gudbisa haddaan u soo noqdo su'aasha aad weydiisay kooxdayda booliska run ahaantii waxay ka mid tahay kooxihii la aasaasay bishii koowaad 2021 ayay ka mid ahayd run ahaantii tabac badan waan gelinay maamul ahaan kooxdaydu markasta waxay kulleeyda heerkii gaadhay 4 koob ayay ka qayb gashay 5 koob ayay ka qayb gashay 5tii koob 3 way guuleysatay aan team bay ku qaaday labana waa laga badiyay run ahaantii kooxdaydu horta heerkii sports lagu yaqaanay koox ahaan aad iyo aad ay wadadeedu u haysaa wayna taagan tahay insha Allah waxaan rajaynayaa kooxda inay inta ka sii horumari doonto oo dadaalkana kulli aan la iman doono macallimiin ahaan su'aasha labaad ee aan doonay inaan ka weydiiyo tababarayaduna waxay tahay kooxahooda ciyaarayseen dhinaca kubadda cagta maadaama aad sheegtay in 17 kulan aad ciyaarayseen kooxdee baa kuugu adkayd xagga wada ciyaarista run ahaantii horta kooxdaydu match waxa ciyaartay inta koobe 5 koobe ay ka qayb gashay 17 kulan 17 ka kulan waxay guuleysatay oo ay guul gaadhay 14 kulan hal kulanna way barbaraysay kulli matchka igu adag amba matchka aan ka bixi kari waayay kooxdeeda caqabad weyn ay la kulantay kulli waa intii laga badiyay iyo intii ay barbaraysay intay badisay inaan kulli ku adkayn ayaanu fikiraan aaminsanahay dawladda hoose waxaan la ciyaaray 5 kulan 5 kulan ilaahay horta aanu guushiisiyay 5 kulan la ciyaaray dawladda hoose nasiibkii guush horta ana qaatay kulli guushuna waxa weeyaan tartanka kulli sababta ay kooxuhu u yimaadaan shalay toole Gibile waxa lagu qabtay Super Cup Somaliland oo dhan markii ugu horeysay ee lagu qabtay uu noqonay Super Cup kaasi waxa la ciyaartay dawladda hoose ee degmada Gibile ciyaartaasi maxay kaaga doonay 17kii ciyaar ee hore aad sheegtay inaad soo qabateen run ahaantii ciyaaraha kale waxay iga duwan horta koob ay ahayd waxayna ahaydeen ciyaartii ugu horeysay ee ka dhacday Gibile ee la ciyaaro league maxaa ahaayeen Super Cup ka marka horta waxay ciyaarey kala ku duwaneed Super Cup horta Gibile horta hore loogu ciyaaray ma jirin marka ciyaartuna kulli final bay ahayd marka ciyaartaas ciyaarey kala wax kaga duwaneed oo kaliya Super Cup ka cusba aan ciyaarnay bay kaga duwaneed ciyaarey kale wax kale oo kaga duwaneed ma jiro shaashada Quality HD Sports shalay waxay qabatay ama adiga oo dareenkaaga lagu wadaagayo aad u sheegtay hal hays ahaa hanqaraarac lug uma dhutiyo hal hayska maxaad uga jeeday bal bulshada intaan fahansaneen fahansi warunta horta kooxda markii horeysay la aasaasay kooxdu waxay lahayd upline on tartanka ku soo galay oo tartamada hore aan soo sheegay bay ciyaarayay tartankaas marka waxa iga maqnaa shalay toole markaan ciyaariyay Super Cup-ka 7 ciyaartoy upline ahaa hal ciyaartoy uu ila jooga oo maamul ahaan buu dusha iga yahayo kooxda markii hore lugtu igu ciyaari jiray oo Hargeysa imika u ciyaara wasaaradda warfaafinta laakiin halka maamulka iyo dhiirigelinta uu ila jooga horta ciyaartoygaas iyo 6 ciyaartoy oo ka soo safanayay shalay toole kooxda dawladda hoose oo u ciyaariyo upline ha anigana upline bay halkay ka ahaayeen dawladda hoosena shalay upline bay ka ahaayeen marka hadal hayska waxaan u idhi hadal hayska wuxuu ahaa hanqaraara 2 lugood iyo 3 lugood iyo 4 lugoodba midnaba waxba uma noqdo marka saas oo kale kooxda uga soo qaado hadii 6 ciyaartoy amba 7 ciyaartoy upline iga tageen nacantii waxaan uga jeedaa ma tabin ciyaartooyda iga tagay ee kuwa jooga baa mar kastaba guusha kooxda iyo hawsheeda halkay ka sii wadaya waxa jira sida aad sheegtay hal hayska markaad ka timaado
kooxda Goodir mudooyinkii ugu dambeysay ciyaartoy badan baa saacad sheegtay kaa tegay oo ablaan u ahaa dowladda hoose ee degmada Gabiley saacadihii ugu dambeeyay isla kamarada quality HD Sports waxay qabatay sawirro dhinaca tababarnimada sawirro asfiday sawirradaasi shucuur noocee ayay adiga ku yeeleen shakhsiyankaaga markii social media ku baahin run ahaantii horta sawirrada ismaan ogeyn waxaan ku jiray xaalad adag mar kastana ciyaartooyada waxa ka naxdin xun macalinka goobta taagan ayaa ka naxdin xun ciyaartooygu markuu kubadda isagoo lugta saa seedhigu afuufo ay naxdintu ka baabaadaa laakiin macalinku ilaa inta seedhiga la bilaabay ilaa inta koo dambe dhacayo naxdinta iyo warwarku u haystaa maad guulaysan ma lagaa guulaysan amba hadduu gool leeyahay ma lagaa daba keeni markaa horta kamaradaha iyo sawirkaa ismaan ogeyn ciyaartan ku dhex jiray markaa kulley sawiradaa de aan galayna amba laga qaaday anigoon dee hawshaydii gudanaya waxay ahayd ciyaarta oon ka fikirayey dee sidii aan ku guulaysan lahaa ama sidii lagaga guulaysan lahaa inaan iska owdo oo aan ka hagaajiyo markaa waxay ahayd kulley horta mar aan hawshaydii ku guda jiray unbay ahayd aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed cali qabdaan tababaraha kooxda Goodir oo kaaga mahadcelinaya quality HD Sports waraysiga kooban aad siisay